مدن عبد الملك ان سida aan la wada socono madaxweyne Axmed Islaam waxa uu magacaabay mas'uuliyiintii hogaamin lahayd ama ka shaqayn lahayd ama xukumi lahayd gobolka Gado ee maamul goboleedka Jubbaland mas'uuliyiintii hore u sii joogay halka way qaadaceen dadka loo soo wado marka maadaama adiga takhasuskaagu uu yahay xalinta khilaafaadka iyo dejinta xasaradaha arrintaasi sidee kula muuqataa بسم الله الرحمن الرحيم هاشم مرتو سلامي أدقى إيوه دادك الصوماليات غنايا أما ندقى سنايا موضوعا مسألة دا أدوي دي سي رنتي معلومهان أدبى الله هذا الهياء وانا برنامج سياسيا wax badan taabanaya sida muuqatana waxaad moodaa marin habaabin fara badan oo dhaqanka siyaasadda iyo habraaca siyaasadda ee maamulka Jubbaland muddo ka soo jirtay in ay extension si sameynayso oo si balaaranayso أنا رأولي بينان سوق جابيو نحرك ورك أو ده سوماليدو أي كده ركسن تهاي ما أنت مالك استوي شوكتو وحنسليه هاي معمول كلام مجعابي والله مجعابي قبل كجدو أو مجعابي مدحوينها جبلان مدحوين أحمد إسلام حنسليه هاي مناسب ما يهين سياسة قبل كمركل لاجوس مناسب ما يهين خلافات كفراها بدن نوع بلاد كأبابولن وهذا الديجان ككتير مناسب وما يهين هرديدي كده حيسي سياسة قبل كيوم مدحوينه كوري مدحوينها هذا فرديو مدحوينه حسن مدحوينه كوري مدحوينه فرماجو قابك وجهي سياسة قبل ك مركي لو إيجو محاسلنا هاي أيضا صح ما يهين إن هذا هدي فرماجو وشلي تلقوا إيدينا إنه قبل ك قيبنا يو قاب قبل نو قيبنا يو هدي وماشى كبحي إن ما أنت أود الشلي وفرماجو استعماله هي مد أحدنا قبل كي يضدك الدجان كدجنا الله استعماله أيضا مناسب ما يهين بنسلي هاي أنت وانا كسي درن نك اللي يرادو هاشمو كل كان هذا مسكح فيو وحكو أجنو كل كان مسكح قبيل كمرن وحكو أجنو كل كان مسكح إن صومالي اللي سكانو أو وحكو أجنو وحد مدة صومالي ذو حين هدانو فاين بفوض قضاتي قبل كجدو مدحوين فرماجو وحلقوا إيدينا إنه قاب قبيل وجهي أو جدو وقوسكي سجوا وكسو تشيده هو سكسو تشيده إنه لا صفتي محي هيدا قال لا سفر بدن أو عندما لقى كاني مقدشوا ماشى لقوا صودا بولي إيو إن مسؤولين عن جبلاند محوها كأمر ديدي أو environment وكسمينا أو وكبعنا إيو شعبكي أو أبابولا قاب قبيل إيو وحصودا أيوم محوها مدحوين فرماجو استعمالها يي marka aqoonyahan Cabdi Maalig adiga oo sii wato hadaan ka dhaxgalo marka qaabkee ugu habooneed ayaad isleedahay oo haata xaaladda loo wajihi lahaa habooneed intaan u gudbin ninka la yiraahdo Hashim madaxweyne farmaajo hadii uu inta sameeyay waa ku eedeynay oo ficlan aniga laftirkay door cod on duubay madaxweynaha waxaan ku eedeyni jirnay in qaabka uu wajahayo ay tahay qaab beeleedna uusan Soomaaliya loogu dooranin sidaan uusan ogaan ku noqonaynin maanta waxa ay dawladda Soomaaliya sameysay oo uu ra'iisul wasaare ka yahay muxuu ahaa saaxiibkay Xamse iyo muxuu ahaa madaxweyne Axmed oo madaxweyne ka Jubbaland waxa ay sameeyeen ba kali tabaan isleenahay wixii shalay lagu eedeynay ninka la yiraahdo farmaajo مع الأسف وحاضن ولي بهالمامين نك اللي يرادو سومالينا أنا ولي هالمامين شلي
markii farmaajo uu waxa sameynayay dadkii diidana oo ka soo horjeeday waxa kamid ahaa madaxweynaha Jubbaland oo Axmed Maxamed Islaam iyo ra'iisul wasaare Xamsi oo markaa ahaa guddiga doorashada iyo xuduudaha ee Jubbaland gudoomiye uu ahaa waxaan ogeyn ayaga oo la ficiltamaya farmaajo inay laba qodob oo runtii Jubbaland kala geysay in la sameeyay labada qodob waliba labadooda ay mas'uuliyiin ka ahaayeen waxay ahayd doorashadii aqalka hoose oo Jubbaland muxuu ahaa markii la dooranayay in la yiraahday saddex qof la keeno mid baana muxuu ahaa la dhabar taabanaya oo runtii Soomaalida Jubbaland degan siiba Gado ay u arkayeen in muxuu ahaa ayaga lagu majin habaabinayo lagu maran habaabinayo aadna uga xumaadeen waxyaabaha inta badan madmadowga keenay na ay ahayd madmadowga ka dhaxeeya Jubbaland iyo muxuu ahaa Gado iyo waxaan rabaa Axmed Madoobe arrintaas waxa caawiye u ahaa oo muxuu ahaa mas'alada hoggaanka ahaa oo liijaanka u hayay ninka hadda ra'iisul wasaaraha ka amaanta muxuu ahaa dalka Soomaaliya oo Xamsi ah waxaa jirtay ayadana mar la yiri waxa la dooranayaa mudanayaasha baarlamaanka aqalka hoose oo dawladda Soomaaliya oo saldhigoodu yahay Muqdisho oo runtii guddigaas soo dooranayay oo haddana ra'iisul wasaaraha oo asagu gudoomiye ka ahaa habkii loo maray asagana wuxuu ahaa habde Soomaaliya oo dhan ay ka dharagsanad qaabku u dhacay oo iska marin habaabin iyo majaxabin ba ahaa oo ficlan hadee wixii meesha ka dhacayna waxa maalin hore ka hadlay ninka la yiraahdo lafta gareen baa ka hadlay oo ahayd haddaan anigu madaxweyne ahay waxa la waxaan diidi karno waa diidaya waxaan keenayna waa keenaya oo aan cadaaladna loo marin wada saxna loo marin Soomaalinimana loo marin hab midnimo iyo dal isu soo celinna aan loo marin waxa walaalo marka meesha yaala ayagoo Gado shalay qaabkii loo doortay aqalka hoose oo dadkii gacanta ku hayeen ay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ahaayeen aan ogeyn qaabka loo maray oo Gado ay ku duday ayagoo on muxuu ahaa lagala xaajoonin in haddana loo gudbay qaabkii baarlamaanka loo dhisayay oo habkii loo dhisayay muxuu ahaa guud ahaan Soomaaliya uu ka warbixiyay lafta gareen oo ayadana dudadii ay dudo kale sii keentay oo tolkii uu ku fogaaday in maantana hab yaro argoosi ah labadii nin uun haddana uu nin ra'iisul wasaare noqday nin madaxweyne yahay in la yiraahdo muxuu ahaa gobolka Gado muxuu ahaa si maxaabiis madax furan camal waa la wareejinayaa oo qaab maxaabiis ah oo loo yiraahdo waa la wareejinayaa xagee lagu wareejinayaa waxa lagu wareejinayaa muxuu ahaa Jubbaland lagu wareejinayaa hadda su'aasha meesha imaanay waxa weeye Gado mar horta maxaabiis ma aha oo waa deegaan ummad Soomaaliyeed degan tahay oo inta la eego masiirkood iyo tashadooda iyo taladooda gacanta ku haystaan sababta maan federalism Soomaaliya looga dhigana waxa weeye nin waliba inuu tashado taladana geedka weyn ee maanta Jubbaland la yiraahdo lagu ururiyo haddii geedkaas talada tolka iyo talada ummadda Soomaaliyeed ee meesha wada degan aan lagu ururini karin waxa imaanaysaa hadda geedka inuusan geed Soomaaliyeedna noqonin geed Jubbalandna uusan noqonin geed tolku iyo ummadda meesha wada degan ay leedna inay walaal inay kala tashadaan taasa keentay marka in muxuu ahaa ay maanta muxuu ahaa nimanka la doortay inay maanta reegado ay yiraahdaan maya ilaan wadadii ka habooneed looma marina waxaad moodaa barnaamijkii farmaajo shalay sameeyay in looga argoosanayo nimanka shalay ku diidananaha maanta qasabaad hoosta ku tagayaan qasabaanad ku magacaabaysaa tala ku horeysay wax badan ku horeeyay inta waxa dheer walaalo madaxweynaha Jubbaland iyo muxuu ahaa ra'iisul wasaaraha maanta jooga oo inta soo eed baa labadooda shalay ku dhaceysay in haddana iyagoon dadkii la tashanin ra'iisul wasaarahana uu asagoo madaxweynaha isticmaalaya timber loogu soo dhuftay Axmed oo meesha xukun Axmedkii xukun timber loogu soo dhuftayna uu muxuu ahaa asagana maanta magacaabid ka bilaabo isagoo war maxaa wax dhacay iyo xagee wax naga jireen uu san dhihin hadda waxay noqonaysaa taxanihii qaladaadkii Gado lagu hayay ay ka sheeganayeen in maalin waliba maalin wax loogu sii kordhinayo maxaa loo baahnaa aqoonyahan Cabdimaalik in la sameeyo oo dawladda Jubbaland ay samayso walaalow dawladda Jubbaland waxa ugu haboona inay samaysona ay munaasab ahayd waxa weeye in reegado maxay ahayd ay la aado guddiga maanta dadka la magacaabay oo lagu magacaabay inay gudoomiyayaal yihiin waxa ka habooneed in loo magacaabo guddi dhaxdhaxaadin sameeya in la magacaabo oo nimanka maanta la gudoomiyo gobol way iyo gudoomiye degmo way in tolkooda inta loo diro la yiraahdo gudoomiyaha dhaxdhaxaadinta iyo wada hadalka iyo isu soo ururinta muxuu ahaa gobolka Jubbaland in lagu magac daro
markaa tolkooda ay aadaan tolkoodana ay ka soo dhaadhiciyaan in waxa ay halkaa la joogaan ee ay la diidan yihiin Jubbaland ila Jubbaland ma diidana iyaga waxay leeyihiin Jubbaland xortaan nahay ila Jubbaland lama diidanee masiirka iyo qaabka maamulka uu u socday dadku diidan yihiin waxa marka habooneed dadka maanta loo magacaabay maamulka inta laga daayo in loo magacaabo guddi dhaxdhaxaadin ah in tolkooda loo diro tolkooda ay kala soo hadlaan qaabka Jubbaland ameystiran oo mid loo heli lahaana halkaas ay ka bilaabanay lahayd waa isla garanay mar haddii xaaladdu ay sidaa tahay adna takhasuskaagu cabdimaaligga uu yahay xallinta khilaafaadka iyo dejinta xasaradaha maxaa xal ahaad u aragtaa adiga walaalow xalku waa cad yahay xalka horta koobaad waxaa weeye annaga dad islaamaan nahay dadku way sheeganayaan ilaahay subxaanahu wa tacaalana walaa yajrimannakum sanaanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa rabbi baana leh cadaaladda waxaa ka mida ninka mas-uulka cadaaladdiisa waxaa ka mida ninka ka sheegta inuu intuu u yeedho u yidhahdo maxaad iga sheeganaysaa in qofkii muxuu ahaa shacabkaha ee cawday ee duday ee halkaa istaagay adiga mas-uulkahana aad dhahdo anaa awood leh awoodaydaan kugu maquuninayaa waxay ka mid tahay injustice-ka ay ka mid tahay cadaalad xumada ay ka mid tahay ilaan meesha marka waad garanaysaa muxuu ahaa Umar bin Khattab radiyallahu anhu maalintii jimcihii intuu masaajid ka istaagay asagoo laba go' wato go'iisa iyo go'i wiilkiisa Cabdullaahi asoo wato markuu khudbada intuu istaagay uu khudbada bilaabay rag baa istaagoo yiri ma ku maqlayno mana ku dhageysanayno nooga dag minbarka waa Umar bin Khattab ninka sidaa leeyahay Umar bin Khattab waxa weeye awood buu lahay awood muuna isticmaalay wuxuu yiri maxaa dhacay waxaad ugu diidantiin waxa la yiri anaga go' baadna siisay maxaa keenay aduna laba go' wadato wiilkiisa Cabdullaahi yiri Cabdullaahi oo istaaga dadka xushaa markaasuu yiri nawayaha aabahay labada go' wato midna aniga ale waa kii aniga aan qaatay midna waa kii aabahay markaas ay waxay yiraahdeen haddaan ku dhageysanayna khudbada noo wad war qofka mas'uulka ah ninka ka sheegtay ee halka istaagay yiri war cadaalad baan ka la ahay inuu haddana awood u isticmaalo uu yiraahdo muxuu ahaa xoog baan kugu maamulayaa waxaa ka haboon inuu intuu u tago uu yiraahdo war maxaa daran haddii uu tagi waayana inuu la imaado mechanism farsamo uu ninka ku gaari karo oo ka haboon in maanta xoog lisku maquuniyo taasaad moodaa inay munaasab tahay waa midda koobaad midda labaad walaalow waxaan kuu sheegayaa aniga waxaan la hadlayaa ninka la yiraahdo madaxweynaha waxaan kaloon la hadlayaa ra'iisul wasaaraha waxaa kaloon la hadlayaa beesha Mareexaan ee ka soo jeeda gobolka Gado laan Soomaali deegaanka waxa weeye deegaan waliba qabiil baa maanta u badan oo degan Gado maanta markii la yiraahdo Mareexaan buu Ilaahay dajiyay ceebna ma ayna ma aha anuu saddex daba inaan la hadlaan rabaa maxaan leeyahay marka ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay ra'iisul wasaaruhu dawladda Soomaaliyeed ra'iisul wasaare u tahay in laga sheegto ceeb ma aha shalay markaad kismaayo joogtay nin banaanku ka yimid ma tihide nin waxa tahay maamulka Jubbaland ka soo dhaxbaxay markaad maamulka Jubbaland ka soo dhaxbaxaysaba adoo dhaawacyo qabo oo tolka ay ka sheeganayaan oo dadku ay ku tuhunsan yihiin oo adiga lagu arkay inuu ninkan ku isticmaalay inaad tolkaas caburiso Gado ka soo jeedo waliba adigoo Axmed oo la safanaya qaab qabiil buu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ra'iisul wasaare ka dhigay war haddii shalay lagugu tuhunsana inaad Axmed u falgashay oo Axmed aad tolka maxay ahayd aad u jajabinaysay maanta Axmed hoostiisa kuma jirtide maanta dawladda Soomaaliyeed ra'iisul wasaare ka tahay walaalo wixii shalay laga tabanayay iyo maanta lagu arko inaad ninkaas shalay garab taagneed maanta aad ra'iisul wasaare u noqoto oo dadka aad ku sii baabi'in rabto walaalo ka noqo sharafta iyo muxuu ahaa iyo mudnaanta aad maanta ugu fadhido Soomaaliya ra'iisul wasaare intaad ka soo baxdo dadkan shalayba ka sheeganay maanta ratiim baraa ku dhufan wixii lagaaga sheeganay ka noqo dadka u tole Axmedna dadka ka celi wuxuu ku saxan yahay ku garab istaag Mareexaan dadka ka celi waxay ku garab yihiin waxay ku saxan yihiin ku garab istaag ta inta waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha Axmedna waxaan leeyahay war Ilaahay mas'uul buu ka dhigay 12 sanaad meesha fadhida waxaad qaban kartay qabatay waxaad qaban weydana qaban weyday waxa weeye gabagabaad maray haysaa 70 jir ama 80 jir sheeganaya inuu diin ka soo jeedona waa tahay ummadan hadaad ka tagayso waxaad ooga tagi lahayd inaad caburiso oo inta ugu dambeysay kala sii fiijiso oo ayaga dhaxdood maanta isu dirtood isku garaacdo oo fidma dhax dhigto oo balaayo samayso ma aha al fitnatu ashaddu min al qatl wa Ilaahi subhanahu wa ta'ala leeyahay inaad maanta intaad Mareexaan isu dirto intii yareeda ayaga haysito Gado walaal ku ahayd
iskaba jubbaland lagu soo biiray inaad haddana balaayo intaad ku dhex tuurto ay ayaga isa sii laayaan oo lisa sii baabi'iyo waxba ku kordhin mayso ilaahaygaa intaad ka baqdo ummadaas u cadaalad sameeyo haddii laga sheeganayo xaqaa loo leeyahay in lagaa sheegtee yaa dadka u yeero dadku waxa ay kaa sheeganayaan kala heshiiye oo kala hadal mareexaan waxaan leeyahay waramayaho maalinba meel baad soo taagneedeen maalinba meel baad soo taagneedeen maanta waxaa taagantihiin inaad idinka dhexdiinna inta laysu keendiro aad loo ma garanayo meeshaad ku socotaan sababtooy tahay hadda waxaan arkaya kuwa qaylinayo oo idaacada taagan oo nimanka ma imaan karaan iyo kuwa isla meeshii taagan oo ayagana la waa imaani karaan halka aad joogtaan waa meesha ugu liidatay gobol dhan oo aad ka soo jeedeen oo Jubbaland maanta 50% aad ka tihiin baa maanta aad moodaa in meeshu ku socdo aan la garanaynin Axmed oo hal sana u dhiman nayahu dhimbishaas idinku soo tuuray idinkuna ha isku laaynina kuwa la dirayna tolkiina la idinku dhac tuuray halaynina kuwa meesha sii jooga ee la anaga madaxweynaha Jubbaland ma maqli karnona war tolkiina Axmed hal sana u dhimane tolkiina meel cilaha ku baabi'inina intaad idinku isu tagtaan halkaas sana hadaad Axmed raacdaana waxba idinka go'ay maaye tolki u turay ee raaci Axmed waxay ahayday tolkiina u tura oo Axmed maanta waxba kale idin ma soo waday madaxweynaha noo tahay muu idinka rabaay ilaa ma idin soo jeedo danna idinka balaha mana idin soo socdo marka madaxweynaha noo tahay bas muu idinka raba Axmed waxa weeye wax kale idin la soo socdo ma jirtee inta tolkiina inta la soo keendiro aad tolki baabi'in lahaydeen isu tagay wada hadlaya hal sana meel idinka gaari meesha Axmed madaxweynaha noo tahay dhaha hadaadan dhihi karina isku raaco Axmed madaxweynaha noomatii dhaha hal sana waxba idinku soo kordhi maayo waxba idinka go'i maayo laakiin idinka inta la isku kiin adeegsado maanta la isku soo kiin tuuro ee kismaaya marka hore haysateen maanta aad garbaare iyo luuq iyo doolo ila isku laysaan oo idinka aad maxay jifa u kala baxdaan waxba idinku soo kordhin mayso waqtigan haas ka dhuminina idin dhaxdiinina ha islaynina cid aan waxba idin soo wadina waxay aheedayaan maanta meesha idin kala geynin intaana mareexaan aan dheelaha aad baan u mahadsantahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay aqoon-yahan Cabdi